yahay dacwadda maanta loo fadhiyo iyo iswaafajinta cadeymaha maragii ay maxkamadda dhageysatay ee kala ahaa maragii koowaad iyo maragii labaad. magacaygu waa abukaata cali xalane waxaan qareen u ahay eedaysana siid cali macallin daa'uud oo racfaan ka soo qaatay xukun ka soo baxay maxkamaddii gobolka. sidoo kale waxaan u fadhinaa dhacdo ka dhacday degmada Dharkeenley guri ku yaallo 26 bishii koowaad 2024 ee sanadkan ayadoo gurigaasi qolka falka uu ka dhacay dhexdiisa ay yaaleen sariir, kursi, miis iyo armaajo. halkaasi waxa dhaawac uu ka soo gaaray Lul Cabdikariin Maxamed. mudan gudoomiye garsooreyaal kiiskaani maalintii uu dhacay ma helin baaristii dhabta ahayd ee la rabay sida xeerka uu qabo in isla markiiba maxkamaddu waxay hor u baraarujisay inaan la ogolayn wax wada sheekaysiya. howlka maxkamadda waxaa loo fadhiyaa keliya in la dhageysto bandhiga uu sameynayo qareenka eedeysanaha. sidaas darteed maxkamaddu waxay ku baraarujinaysaa wariyaasha halkan u yimideen inay tabiyaan dacwaddan inaan la ogolayn wax wada sheekaysiya. ciddii ay maxkamaddu arrinkaas ku heshana howlka in laga saari doono. kiiskaani ma helin baaristii la rabay inuu helo. sababtu waxay tahay mudan gudoomiye garsooreyaal falku markuu uu dhacay 26 bishii koowaad 2024 sanadkan 31 isla bishaas oo ah 5 maalmood ka bacdi ayaa waxaa bilowday baaris. taasi waxay ku tusaysaa in waxyaabihii la rabay in la helo ee lagu dhiso kiiska aanan la heli karin 5 maalmood mar hadday ka soo wareegatay. sidoo kale maxkamadda gobolka waxaa laga ifiyey ama laga sheegay in guriga uu iska ballaqnaay iska furnaay lana geli jiray lagana soo bixi jiray. marka wax kasta oo evidence ama qalabkii muujin lahaay ama ifin lahaay inuu fal dhacay meesha ayada ah lagama helin. waxa ayaan dara ah marka Lul markay dhaawacantay mudan gudoomiye guriga ay ku dhaawacantay wuxuu u jeedaa bari. dhinaca koofureed waxaa ka xigo dhismahaasi waxaa ku xigo isbitaal loogu magac daray Siyaad. taasi waxay ku tusaysaa in ay tahay meesha ugu dhow oo qofka bukaanka ah dib markuu soo gaaro gargaar lala aadi karo. ayaan dara ma dhicin dhaawaceedii waxaa lala aaday 14 baloog oo degmada Madiina ku yaallo. baloogiina uu dhinac ka yahay 2 boos oo 20 ah ama 20 ah bimacnaa 40 oo 14 baloog oo kiiba labadiiba ay u dhaxayso jid baloogyadaasi masaafo ah ayaa waxaa lagu qaaday sida halkan laga cadeeyay mooto bajaaj ee la geeyay isbitaalka loogu magac daray Caalami. hadda waan rabaa inaan si gaar ah uga hadlo. waxaan rabaa inaan u soo laabto isbitaal kale oo la geeyay
sida qoraalka uu ku qoran yahay ama warqaddii caddeynta marag muujinta ay ku qoran tahay oo ay leedahay waxaa qoraal noo soo diray isbitaal Digfaar oo muujiyey inay Luul geeriyootay 2 bishii 2024 waxaan marnaba marka la helin eedaysanaha dul saaran oo ah in uu geystay fal dil ah oo ula kac ah mar haddii la rabo in la caddeeyo falka asaga ah waxaa muhiim ah in eedaysanaha rabitaankiisa ay ku timaado eedaysanaha 5tii bishii 5aad 2024 wuxuu isku soo dhiibay hay-adaha dawliga gaar ahaan ciidanka dawladda markuu isu soo dhiibay hadalladii ugu horreeyay oo reportka ahaa ay ka qaadeen wuxuu ahaa in uusan gubin xaaskiisa balse uu gubay alaabtiilay qol mudane guddoomiye garsooreyaal meesha ayada marka ay taagan tahay waxaa la keenay gobolka banaadir waxaa laga qoray sida galka ku qoran statementya laga qoray cadeymaa laga qoray 14 bishii 2aad waxaa laga qoray in uusan galin dembiga loo haysto balse uu ka maqlay raadiyaha ninkii xaaskiisa gubay wuxuu caddeeyey falka uu geystay iyo xaqiiqda dhacday halkan waxaan u taaganahay waxaa waaye dhacdada xaqiiqda ah inaan maxkamadda la wadaago mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sidoo kale waxaa galkeeda ku jiro cadeymo laga qoray eedaysanaha 15kii bishii 2aad oo galka ay ku jirto CID-da ay ka qortay oo su'aalo iyo jawaabo ay isugu jiraan markii interview-naha lagu sameynayay wuxuu si toos ah u carabaabay oo u sheegay in uu gubay qol ee uusan gubin xaaskiisa weliba wuxuu carabaabay oo sheegay qolku waa marnaa cidi kuma jirin xaaskaygana waxay joogtay qolka jiifka sidoo kale 15 bishii 2aad waxaa laga qoray caddeyn horgeyn loo sameeyey si waafaqsan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta caddeyntaas ayada ahne wuxuu ku tilmaamay ee uu ku sheegay inuusan ruux bini aadan gacantiisa gaarin horeyna u gaarsiinin lulna uusan dhibaato u geysanin ama uusan gubin intaa markaan ka gudubno mudane guddoomiye maxkamadda waxaa hor yimid oo ay maxkamaddu dhageysatay marag koowaad ee la dhaho Faadumo Abuukar Cali su'aalihii la weydiiyey maxkamadda horteeda waxay ka furtay inuu lul korkeeda uu qoyanaa qoyaanka asaga ahne uusan ahayn gaas ama shidaal ama baasiin ama nafto ayan uga soo urin sida ay u sheegtay waxaa markii isweydiin mudan mar haddii eedda xafiiska xeer ilaalinta dacwad oogaha sharafta leh oo eediisii tibaax uga dhigay in uu ku bilbilay ama uu ku shubay gaas waxaa bahasha hadalka asaga ah waxaa baabi'inayo hadalka Siid Cali oo ku hadlay difaaciisii maxkamadda uu ka soo jeediyey dhaar kadib sidoo kale cadeymihii laga qoray sidoo kale Faadumo hadalkeeda iyo hadalka Siid Cali waa ay isfurayaan waxaan marnaba shaki ku jirin
shidaalka in laga heli karo urkiisa dharka timaha iyo oogada intuba lagama arag Siid Cali maxkamadda horteeda wuxuu ka sheegay ee uu ka cadeeyay in lul oo u xiray jalabiib Faadumo oo dariska la ahna waxay sheegtay markay arkaysay in ay wadatay jalabiib waxay ku tusaysaa in uu yahay erayada uu sheegayo mid ay waafaqsan yihiin maragii xafiiska xeer ilaalinta oo hor keenay maxkamadda markaan intaas ka gudbo mudane gudoomiye Dr. Ciise Maxamed Ceymooy oo 5tii bishii shanaad maxkamaddu ay wareysatay isla sanadkan maalmo ka hor wuxuu cadeeyay in korkeeda uu qoyaan ku arkay qoyaanka asaga ahna uusan ka urinin ama uusan ahayn shidaal gas basiin ama nafto dharkeedana uusan ka urinin su'aasha imaanaysa marka waxa waaye Siid Cali inuusan ficil ku shubis gas ah uusan u geysanin lul waxa cadeen u ah labadaas qofood oo marag furkii halkan loo keenay su'aalo la weydiiyay kadib ay raaceen dariiqii uu ku hadlayay ama xaqiiqdii uu sheegay Siid Cali markaan intaas ka gudbo mudane gudoomiye garsoorayaal waxa isweydiin mudan in marka hore la helo ama laga jawaabo su'aasha ah su'aasha u baahan in dacwadda lagu soo baldhigo su'aashaas oo ah sababta natiijada iyo faa'iidada muhiimay u tahay dacwaddan xafiiska dacwad oogaha ma keenin sababta keentay in lul la gubo ama shidaal lagu shubo ma la sheegin sababta keeni kartay ee ku qasabtay Siid Cali lama urinin lama sheegin sidoo kale lama sheegin haddii ay dhacday in shidaal lagu shubay oo dab la qabadsiiyey natiijadii ka dhalatay lama sheegin sababtu waxa waaye mudane gudoomiye gubninka qolka waxa xafiiska iyo anaga iyo baarihii kiiska iyo aragtidii aan ka arkaynay miidiyaha na tusayeen in guriga wixii ku jiray ay basbeeleen marka haddii guriga wixii ku jiray ay basbeeleen natiijadii taas waaye alaab gubisti waaye waxay ahaan lahayd ruux bini aadan hadduu ku jiro halkaa asaga ahne inuu ku basbeelo laakiin ma dhicin maxaa dhacay dhaawac baa dhacay dhaawaca asaga ah marka ma aha natiijo in qof la dhaawaco natiijadeedii ma ahayn in qof la dilo natiijadii ma aha natiijada ma aha in cid la waxyeeleeyo markaan ka gudbo midda saddexaad aan u gudbo mudane gudoomiye waxaa la rabaa oo muhiim ah in ay jirto ficilka qofka marka uu samaynayo oo faldambiyeedka ah in ay jirto faa'iido asaga uu ka helayo mar aan weydiiyey su'aal Siid Cali ee aan iri albaabka qolka markaad ka soo saaraysay lul gacnaheeda wax mu ku wadatay wuxuu cadeeyay inaysan waxba wadan asagaan su'aashii u dhigay wuxuu sheegay inuusan waxba wadan waxay ku tuseen marka goobta faldambiyeedka la leeyahay uu ka dhacay ama falka dabka ah uu ka dhacay wax laga soo qaatay oo natiijo ah ama faa'iido ah ee la dhihi karo faldambiyeedka eedaysanaha sababta ayada ah uu ku kasbaday ma jirin ee xafiiska uu soo baldhigay ee uu la wadaagay maxkamadda mudane gudoomiye garsoorayaal marka Siid Cali loo yimaado Siid Cali erayada uu ku hadlay maalintii ugu horeysay ilaa maalintii ugu dambeysay bisha 5teedii ahayd
difaaciisu ahaa wuxuu taagnaay in uusan gubin dilin qaanuunkeenna marka wuxuu tilmaamayaa qodobka eedda ee dul saaran qareen baa ka hadli doono laakiin si guudaan rabaa inaan u xuso in uu jiro 3 nuuc oo dilka ah dilkii ulakaca ahaa iyo dilkii kamaca ahaa iyo dilka kasdhaafka ah saddexduba markay dhacayaan ama marka la rabo in baaris lagu soo saaro waa in ay jirtaa in qofka dushiisa ama korkiisa wax loo geystay sababtu waa maxay dilka ulakaca ah makshuuf waaye waa cad yahay wuxuu ku cad yahay in dilka asaga ah qofkaasi oo ula kacayba oo qofkii saaray gacantiisa ay gaartay asagoo rabitaankiisa ay ku timid markii la fiiriyo dilka kama ah guriga dhexdiisa waxaa ku sugnaa xagga dumar ahaan markii loo fiiriyo xaaskiisa oo lul ah marka marnaba ma jirin cid lagu kam'i karo oo kama ahaan loogu soo qaadan karo qodobka asaga ah 445 xeerka ciqaabta ma dhici karto in kama ahaan loo soo qaato markaan ka gudubno marka kasdhaafka makshuuf waaye waa wuxuusan qofka rabin fal uu geystay natiijadii ka timid oo ah natiijo ka weyn falkii uu geystay taasi marka ma dhicin sababtayan u dhicin waxaa waaye shidaal ku shubista cayaar ma ahayn cid ma sheegin in lagu cayaarayay shidaal ku shubista ma ahayn biyo in loo maleeyay shayga uu ku jiro weelka uu ku jiray biyo ma ahayn ujeedka wuxuu ahaa in shidaalka uu og yahay Sayid Cali oo ku shubay alaabtii oo ku gubay sidoo kale mudane gudoomiye waxaa jiray haddii loo baahan yahay in la dhaho qofka asaga ah dhibaato u geystay qof in aanan laga soo qaadin waayo meel dur ah oo bannaan goobta fildambiyeedka uu ka dhacay waa hooy wax kasta oo qof bini aadana lagu waxyeelayn kara ayaa laga heli karaa marka mar haddii qofkii rabitaankiisa uu ahaa inuu fal geysto ama dembi uu geysto waa inuu isla markiiba jeestaa oo haabtaa wax alla iyo waxa u dhow oo isticmaalaa ama wax uu ugu talagalay horay ee u yaalay inuu isticmaali karo waxay ku tuseen marka qalabka ama furniture-ka in waxyaabaha dadka bini aadanka lagu waxyeeleeyo inaanan waxba loogu sameyn karin oo ay tahay oo kaliya in la gubo qalabkaas oo la baabi'iyo xafiiska dacwad oogaha ma tilmaamin mana sheegin sabab keeni karto in lul shakhsi ahaan loo isticmaalay dabka bimacnaa waxaan ka wadaa haddii la dhihi lahaa qalabka kale wax ka tari maayo kaliya shidaalkii inuu adeegsaday ahayd ayadoo ay jiraan duruufaha ku xeeran oo ah inay saarneed meel dheer ay ka saarneed ama inay ku jirtay god oo laga soo saari waayo ama in derbi adag dhabarkiisa dambe ay taagneed taasi waxay keeni lahayd wax macquula oo maangal ah laakiin guryaha annagoo kale aan ku noolnahay ayuu guriga ahaa meel si gaar ah loo dhisay ama si gaar ah cilad u lahaydna ma jirin taasi marka ma ahayn in la isticmaalo ee la soo qaato culayska eedda ee eedaysanaha la dul saaray iyo in loo fikiro aragti ah inuu keensaday faldambiyeed dil ah asaga rabitaankiisa ay ka timid mudane gudoomiye garsooreyaal waxaa meesha ayada ah imaanayo haddii dhakhtarkii lagu sameynayay su'aalo weydiinta oo ku tilmaamay in uu ka qalin jebiyey 2015 2014 bishii koowaad 26 oo falkaan u dhacay bimacnaa waxa waaye 2015 tira ahaan waxa laga soo qaadanaa 2023 marka 2015 ilaa 2023
meesha ayada ah waxaad arkaysaan in ay tahay 8 sano muhiim waaye maadadan ayada ah in loo qoro 8 sano ayay waxbarashadiisii iyo xilliga fildambiyeedka uu dhacay ama bukaanka uu xiriir la yeeshay u dhaxeeyo markii la weydiiyay doctor ciise maxamed caymow wuxuu ku jawaabay 11 sano ayaan ku shaqeynayay xirfadda marka su'aasha imaanaysa waxa waaye haddii dhakhtarka uu qalday taariikhdiisii iyo noloshiisii ma keeni kariyaa cabir lul dhibka dusheeda saaran ma ku keeni kariyaa xisaab ahaan 90% ama 89% inuu dabka yahay ma ku keeni karaa jawaabtu waxa waaye waa maya ma ku keeni kariyo marka uu tilmaamay in uusan ku samaynin wax baarisa ee uu kaliya uu saaray dusheeda silver cream mudane gudoomiye garsooreyaal silver cream waxaa lagu gadaa farmashiyooyinka xamar $1 la gadaa qofka markuu daboolka ka qaado shay gubanayo oo hufta ama uumitada ay soo gaarto oo dabkaasi gaaro silver cream ayaa loo isticmaalaa marka waxay ku tusee culayska iyo dhibka jira xilliga asaga ah in uu ahaa xilli laga maarmi karay in wax weyn la sameeyo sidoo kale mudane gudoomiye luul sid cali markuu banaanku u soo saaray ayada iyo caruurta sida ay caruurtaba ka marakaceen inuu ayagu soo saaray hurdadana ka kiciyay cid kalena aysan jirin luul way soo dhaqaaqday waxay u soo dhaqaaqday sida ay sheegtay maragii koowaad Faadumo gurigeeda laba si ay u kala dhahday mar waxay tiri ayadoo iyo caruurteedu albaabkayga taaganaan arkay marna waxay tiri ayada iyo dad kale oo gurigayga hortiisa taaganaan ka furay Faadumo gurigeeda iyo guriga luul waxa u dhaxeeyo wada 20 mitir ah waxay ku tusayaan marka mudane gudoomiye wadadaas 20 mitir ah in uusan u socon karin qof dab khatar ah uu soo gaaray masaafadaas 20 mitir ah waa degmada Dharkeenley wadada la dhaho waa ugu weyn tahay waayo wada bacaadka marka la dhahayo laamiga laga reebo taasi marka waxay ku tusaysaa inay ahayd qof xayi ah oo socon kartay calina uu kaga tagay dhaawac midda muhiimka ah waxa waaye mudane gudoomiye garsooreyaal Faadumo waxay carabaaday ay maxkamadda horteeda ka sheegtay in ay ku hadaaqaysay ereya ah la ilaaha illa allah eedo caawin oo ay tiri waxay ku soo celcelinaysay dhowr jeer meeshaas ayada ah muhiim waxay u tahay haddii uu jiro qof wax yeeleeyay lul waa ay sheegi lahayd waxay dhihi lahayd qof baa dhib ii geystay la ilaaha illa allah waxay dhihi lahayd nin baa i gubay eedo iyo caawin waxay dhihi lahayd sid cali baa dhibkan ii geystay eedo ogow caawin ma dhicin marka su'aasha imaanaysa waxa waaye ama sid cali la jooga ay ka cabsanaysay maya waa uu ka tagay kaligeeday ahayd marka maskaxda bini aadanka waxay keenaynin marnaba in qofka uu sheegto dhibkii gaaray ee uu gurmad ama gargaar oo weydiisto laakiin uu ku hadaaqi waayo ama uu sheegi waayo cidii dhibku u geysatay muhiimay u tahay dacwadda sidoo kale markii isbitaalka la geeyay oo ay tiri Faadumo gurigaan rabaa inaan ku laabto yaan kugu wacaa waxay si toos ah u sheegtay telephone number oo maskaxdeeda ku jiray taasina waxay ku tusaysaa ogaalkeeda iyo caafimaadkeeda xilliga asaga ah inuu fiicnaayo markaas markii la gaaro marka dhakhtarka ciise wuxuu si toos ah u carabaabay
in luul ay u sheegtay in ay uur leedahay laakiin uusan ka qaadin wax diisita ah ayna u sheegin dhibka cidda u geysatay muhiimay ahayd inay u sheegto waa labadii qofood oo ugu dhowaa oo laga heli karay eedaysanaha hadduu yahay mid ku sifoobay eedda maanta loo haysto intaas waxay ku tuseen marka in aysan jirin oo malo lagu dhisay eedda iyo xukunkii aan ka soo qaadanay racfaanka intaas waxaan rabaa inaan ku daro ee aan maxkamadda la wadaago una soo gudbiyo warqadihii laga qoray eedaysanaha booliska uu ka qoray CID-da oo aan hadda ka hadlayay oo caddaynaysay in uusan gubin xaaskiisa ee uu gubay qalab ayadoo qoraal ah sidoo kale waxaan rabaa maxkamadda in aan la wadaago warqaddii horgeynta lagu sameeyey oo ay isku taariikhda yihiin warqaddaas oo la qoray 15 bishii labaad nuxurka hadda ka sheegayso waa hal kale dukumiintiyadan dalka ku jiraan dhammaantood waa haysataa waa la hayaa maxkamadu waa haysaa okay horgeyntii waa la hayaa dukumiintiyada soo kale waa la hayaa marka dukumiinti aan la haynin hadda soo gudbinaysid dalka maxkamadda waa lagu gelinaya laakiin dukumiinti maxkamadda ay hayso mar labaad in la geliyo macno ma samaynayso dukumiinti aan la haynin waxaan haynaa caddeyn cajalad video ah ee luul aabbaheed cabdicasiis maxamed oo ku tilmaamayo in dhibka dhacay uusan ahayn dhib Siid Cali uu u geystay shidaal ku shubay dab qabadsiiyey gabadhiisa dhaawacay kadibna ay u geeriyootay inuusan ahayn video baan ku haynaa waxaan jeclaan lahayn caddeyntaas ayada ah inaan soo baldhigno USB ay noogu jirtaa inna loo daaro ma wadataa computer soo bandhigi karto shaashad diyaar waay inta aan la daarin waxaan rabaa inaan sii sheego wuxuu tilmaamayaa aabba cabdicasiis in wiilka iyo gabadhuba ay caruurtiisa ahaayeen isla markaasna aysan jirin xurguf ama qalad ayaga dhexdooda ah ee gaarsiin kara meesha maanta dacwadda ay gaarsiisan tahay waa qoraal waa cadeymo video ah oo hadalkiisii ah oo video ahaan looga duubay baraha bulshadana ay ku jiraan cid kastana ay daalacan karto laakiin waxaan ugu talagalnay in eedaysanaha difaaciisa ay qayb ka noqonayso maxkamaddana aan soo balbay waan daawan doonaa hay si wado wixii kala ma jirin marka wax ka duwan taasi oo keentay balse carada iyo xanaaqa waxay ka timid markii la yiri waa maqan yahay magaaladu ka maqan yahay markaas waaye marka uu xaalku uu isbedelay laakiin dhacdadii hore u tiilay waxay ahayd dhacdo aanan ahayn sida maanta loo dhigaayo oo ah inuusan Siid Cali cidna dhibaato uusan u geysanin dhaawac iyo dil intuba marka intaas ka gudbo mudana gudoomiye waxaa ayaduna xusid mudan in Siid Cali rikoorkiisa uu yahay rikoor fiican macnaha CID-da baarista ay ku samaysay uusan ahayn qof horay u galay dembi ama ku sifoobay dembiga nuucan oo kale ah sida caadaysto oo kale inuusan ahayn su-aasha imaanaysa marka waxaa waaye ma loo helay qaabkii ama sidii la rabay in lagu soo saaro in faldembiyeedkan uu u dhacay maya cidda keliya mudana gudoomiye oo tilmaami karta ama sheegi karto sida ay wax u dhaceen Siid Cali waaye Siid Calina dhaar kadib 5tii bisha 2024 ayuu maxkamadda horteeda si toos ah ugu sheegay in uusan ahayn eedaysane ama dilaa geystay faldembiya oo dil ah
intaasi kadib marka haddii ay jiri lahaayeen waxyaabo qariino u ah ama waxyaabo shaki ah ee looga shakin lahaa in ay dhici kartay arrintan ma jirin lul aabbaheeda si toosa hadda markaan dhegaysano uga sheekeen doono ee asaga ayaa nooga dhow mana dhicin laakiin culayska yimid wuxuu noqday maqnaashaha waa qodobka 39aada saaran xeerka ciqaabta eedaysanaha qofku waana ka maqnaan kariyaa goobtii uu fildambiyeedka ku galay marna asoo joogaa lagu qaban karaa marna waxaa dhici karta inuu asagu isgeeyo laakiin su-aasha u baahan in maskaxda lagu haayo waxaa waaye mudan guddoomiye fildambiyeedka oo guriga la gubay markuu dhacay dhaawaca lul soo gaaray markuu gaaray geerida iyo dhaawaca isla goobtii fildambiyeedka uu ka dhacay kuma dhicin laakiin markaad aragtid qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa loo dhigay tibaaxdii la raaciyayna laga dhigay marnaba lama xusin inuu dhaawac soo gaaray muhiimayna ahayd balse waxaa laga dhigay qof dilay bimacnaa falka meesha uu ka dhacay in isla qofkii uu ku geeriyooday ayay u eg tahay taasina waxay keenaysaa ay ka hor imaanaysaa cadeymaha marqaatiyadii maxkamadda la hor keenay sheegistii ay sheegi lahaayeen waxyaabihii ay ku dareemeen ama laga soo qaadan lahaay qoyaankii dusheeda saarnaay ama ooraah ay u gudbisay hadday jiri lahayd marka waxaan codsanaa inaan intaas ku soo xiro haddii aan la keenin qof marag ah haddii aysan jirin khiraal eedaysanaha uu khiranayo wax loo isticmaali karo 434 qodobka asaga ah laguma dabaqi karo sidaas darteed wuxuu ku yahay culays aanan baaris ku dhisnayn xafiiskana oo la imaanin cadeymihii la rabay inuu ku soo baldhigo asaguna aysan ahayn mid afkiisa ka timid haddii la rabo in wax la raadiyana aanba waxbaba oo cadeyn karo inuu ninkan yahay mas'uul dembi oo ah dilka lama hayo tan ugu weyn waxaa waaye isbitaalka warqadiisa mudan guddoomiye markaan aragno ee sheegayo digfer wuxuu leeyahay waxaa waraaqna looga soo qoray isbitaal madiina oo kaartidii moortada warqadda geerida tilmaamayo wuxuu leeyahay waxaa qoraalna looga soo qoray isbitaal digfer ee lagu tilmaamayo in labadii bishii labaad lul ay geeriyootay qoraalkaas asaga ah marka ayuu tix raacayaa wuxuuna leeyahay waxaan aragnay qof korkeeda faashad ay saaran tahay ee dabkina u geeriyootay geerida waxaa keeni karto caabuq qofka ku dhaco geerida waxaa keeni karto infection oo 8 maalmood ayay isbitaalka ku jirtay markii laga bilaabo 26 bishii koowaad ilaa 2 bishii labaad lul waxay ku sugnayd 8 maalmood isbitaal digfer 8daas maalmood 2 ayaa u furnayd inuu dhaho waxba lagama qaban karo dibadda ha loo qaado ama inuu dhaho qaata guriga geeya qofkan organiskii ama xibnihii la rabay inay sii noolaadaan way sii dhammaanayaan aalad baa jirta dhaqaatiirta ay ku ogaadaan labadiba ma dhicin waxaa cajiib ah marka in dhacdadii markay dhacday uu gacanta ku dhigo la wareego isbitaalka natiijadiisiina ay noqoto sariirtii uu ku hayay inay ku geeriyooto waxaa dhici karto geerida inaysan ahayn dab oo lul hadday dab u dhiman lahayd waxay ku dhiman lahayd 26 isla goobtii 27 ay dhiman lahayd 28 ay dhiman lahayd 29 wahaakada ilaa 1 February ay geeriyoon lahayd intaas oo dhan hadday geeriyoon weyso waxay ku tusaysaa marka inay ahayd qof raadinaya inuu sii noolaado waayeyse
cillado kale oo soo baxay in laga hortago tan ugu qatarsan waxaa waaye mar haddii aanan lagu samaynin autopsia ama aanan la dilaacinin ee aan la feedin gudaheeda lana ogaanin sababta ay u geeriyootay cid dhihi karta ma laha waxay u geeriyootay dab laakiin qof kasta wuxuu fiirinaa waxa dul saaran markaasuu dhaha dab waxaa jirtay jawaab halkan ay ka dhawaajisay Faadumo oo xigmad weyn ku fadhiso oo ay ku tiri eedoy waxaan ka baqaa caruurtayda in aabahood uu geeriyooday anigana aan ka tago oo ay aabe iyo hooyo la'aan ay ku noolaadaan Faadumo waxay ku jawaabtay looma dhinto dhib ee waxaa loo dhintaa ajal marka waxaan leenahay lul Allah u naxariisto maalintaas waqtigeedii aa dhamaaday laakiin uma dhimanin culayska iyo eedda xafiiska xeer ilaalinta oo dul saarayo Siid Cali maxkamadda waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan abukato mahadsan tahay marka waa lagu soo bandhigayaa